saxaafadad kan yar kooban waxaan u qabtay iyadoo bishu maanta kow tahay isniinna tahay in waqtigii loogu talagalay in la qabto araajida musharaxiinta u sharaxan xisbiga wadani inay noqdaan hoggaanka xisbiga ee kala ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada oshana iyo xogayaha guud in muddadii aan u qabanay maanta ku eegay 12 saacadood maadaama xeerka xisbigu dhigayo in ugu dambeyn ay laga qabto araajidaasi 14 cisho ka hor muddada uu shirweynuhu qabsoomayo marka maanta bishii waa kow shirweynuhuna wuxuu qabsoomayaa bisha 15keeda wuxuuna soconayaa ilaa bisha 16keeda marka waxaan halkan ka ilaaminayaa in araajidii soo xareeyeen in allaale intii daneynaysay inay musharax ka noqdaan oo tartamaan cidii kale u diyaarayd inay soo sharaxdana waqtigu ku dhamaaday maanta 12kii wixii ka dambeeyay waxba la qaban ee la qabtay araajidii cidii wixii saacadaha ka horeeyay aanu haynana dhamaantood alxamdulillah rabbil soo dhameystirmeena dhamaan musharaxiinta aan ugu talagalay ee aan tiradooda doonayna yimaadaan ana waxba naga dhameeyay inay dhameystirayeen taas waa ilaahay mahadiisaasana ku soo xidhantay shirweynana wuxuu noo qabsoomi doonaa bisha 15keeda hadda Allah ilaahay bisha 16keeda waxa kale oo halkan ka sheegayaa golayaasha baarlamaanka heer qaran ee xisbiga wadani soo baxay iyo kuwa golayaasha deegaanka ee heerka degmooyinka soo baxay iyaga baarlamaan lama yiraahdo ama xildhibaan lama yiraahdo hadii jeer dadku way qaldamaan ninka golaha deegaankana waxay dhahaan waa xildhibaan waa parliamentarian ninka kale baarlamaanka ku jirana waxay dhahaan waa xildhibaan maaha iyaga waxa la yiraahdaa councillors waa dawladaha hoose ka soo baxeen waa la yiraahdaa golaha deegaan baa la yiraahdaa maaha xildhibaan waa golaha deegaan dhamaantood kuwii soo baxay way nugu jiraan inay ka soo qayb galaan ergooyinka automatically waxay ka mid noqonayaan si toos ah uga mid noqon doonaan golaha dhexe markii shirweynuhu qabsoomo kadib iyaga looma soo dooranayo golaha dhexe ama lama tirinayo ma geli kara mise ma geli kara xeerka xisbiga wuxuu dhigay inay ka mid noqon doonaan golaha dhexe baarlamaanka iyo golaha deegaanka saas leeg golaha wasiirada la soo dhisi doono ilaahay markuu nagu guuleeyo doorashada soo socota hadii ilaahay yiraahdo iyaguna golaha wasiirada saas oo kale automatically golaha dhexe uga mid noqon doona marka halkan waxaan ka ogeysiinayaa way yirihiin golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka tiradii loogu talagalay ee qofku uu ku soo bixi lahaa ee kaamilka ahayd inta gaadhay weerta codka ka dhinaaday waxay wuxuu noqday cod uu xisbigu siiyay oo xisbiguna uu ka helay musharaxiintii nasiib darro soo gaari waayay heerkii darajo ay ku soo bixi lahaayeen ay codkooda ku fadhiyaan haddaan u soo qaato tamsiil hargeysa oo kale meelaha codadkooda aad u sareeyo qofku intuu ku soo baxo ninka baarlamaanka waa 10,000 iyo dheeraad marka 10,000 iyo dheeraad nin baa laga yaabaa inuu keeno 5,000 ama 6,000 ama 7,000 ama 8,000 ama 9,000 marnaba muu gaarin darajadii qofka laga doonayay kaamilka inuu ku soo baxo wuxuu ku fadhiyaa laakiin codkii xisbiga ee xisbiguna ka helay musharaxiintii haray kuwa buuxiyay haddaan laba deegaankuna waa la mid haddaan laba u soo qaato maayirka duqa caasimadda dhowr iyo 20 kun oo cod buu helay marka codka dheeraga ku ihi uu haystaa waxa weeyaan qof iyo dheeraad way qofkii 10 markuu soo baxayo hadduu 5 kun kala meel ku dheeraad leeyna kala barkii kala ayuu taagay macnaha marka waxa weeyaan wixii 4 helay iyo wixii 5 helay iyo wixii 6 helay 3 qof ama 4 qof ayuu sare u soo qaado soo bartikaar oo uu keenay sabab u noqday inuu ka dhigo golaha deegaanka inay noqdaan haddaan barqad soo qaato xagga baarlamaanka qof kaamil ah ayuu codkiisii keenay isaguna intaasoo qof oo mid walba ay ka dhinaan bay codkiisii u buuxiyay marka waxaan leeyahay sidaa ula socdaan parliamentarians ka soo baxay baarlamaanka u soo baxay xisbiga wadani gobol kasta oo joogaan gobol kasta ka soo baxaanba iyo golayaasha deegaankuba inay ku fadhiyaan cidii aan gaarin sida barqad iyo mooge duqa caasimadda hargeysa aanay codkoodu halkay gaareen inuu garanayno iyaguna codka aan ahayn cod iyagu dhaleen cod shacayl iyo dimuqraadiyad loo siiyay Soomaaliland oo hargeysii khaasatan hargeysa u siisay iyo gobolka Maroodijeex maadaama degmooyinka waa degmada hargeysa kolkii goboltayna oo gobolka Maroodijeex oo barqad siiyay ay heerkaas soo gaarsiiyeen marka ha ogaadaan in codkii ku fadhiyaan uu yahay codkii xisbiga wadani taa marka ka soo gudbo waxa hoggaanka xisbigu isla go'aamiyay oo hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo hoggaanka xisbigu iyo anigu gudoomiyaha garabka shirweynaha xisbiga wadani ee labaadiiba in dhammaan golayaashii deegaanka ee soo gaari waayay darajadii soo bixida
iyo dhammaan golayaashii baarlamaanka ee soo gaari waayay heerkii ay ku soo bixi lahaayeen codkoodina uu yahay xisbiga musharaxiintiisa iyo xisbiga wadanimo uu ku fadhiyo yahay in iyagana ay ka qayb qaadan doonaan dhammaantood ay ka qayb galayaan ergooyinka xisbiga lagu darayo ee iska qayb galayaan labada cisho shirku socdaba marka cidii aan wali aan wakiiladii xisbiga u ahaa degmooyinka iyo gobolada ee ergooyinka soo qoraysa ay ka tagtay ama ilowday ama aanay soo qorin toos ayuu xafiiska igu imanayaa waa la qorayaa ergooyinka ay ka qayb galayaan waa amar ka soo baxay hoggaanka iyo gudoomiyaha xisbiga hawshaasina waa sida dhammaantood way ka qayb galayaan cidii markaa laga tagayna waa in ka soo qayb gashay 5 cisho soo socotay ilaa bisha 5teeda gacanta ka soo naga soo galiyeen soo gaarsiiyeen assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh